Horrifying conversation wada sheekeysi waabsi ah. Peace of Allah be upon you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Upon you too. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. What about you? Bal iska waran. I am well. Waan fiicanahay. Well means fine. Before we start our confa, intaynu bilownin wada sheekeysigeena. Confa means conversation. If I say to you two words, haddii aan ku dhaho laba erey, you used to be, waxaad ahaan jirtay the dullest student in the class, ardayga ugu damiinsan fasalka, who knows nothing about English language, kaasoon waxba ka aqoonin luqadda English. At what time, waqtigee, did you study, aad baratay how to speak English like me, sida loogu hadla Englishka aniga camal. Look me up, kor ii fiiri. Who did you think that I am? Kuma ii malaysaa inaan ahay. I had learned English, waxaan bartay Englishka while you were sitting your boat, while goortii you were sitting, aad ku fadhiday your boat tunjigaaga. Bring up, soo barbaar, then come to me, kadib ii imow. So as to teach you, aan kuu baro some words about English, xoogaa erayaa ku saabsan Englishka. Wow, achieve, it is amazing, waa la yaab. How you are pretending like educational person, sidaad iskaga dhigayso qof aqoon-yahan. It is shame to me, ceeb bay igu tahay, to give opportunity like you person, inaan fursad siiyo qof adi camal ah. Opportunity, fursad. I can't tolerate your boring speech, uma dulqaadan karo codkaaga madaxa ah. Even if you do an effort, xitaa haddii aad samayso dadaal, you can't reach my level, ma gaari kartid heerkayga. Because your level is low, maxaa yeelay heerkaaga wuu hooseeya, and my level is very high, heerkaygana aad buu u sareeyaa. So sidaa darteed, look for your level, heerkaaga raadso, facaaga raadso. So leave me alone, kaliya iga tag.